ልንሰርቅ አይደለም፣ ልንደፍር አይደለም፣ ልንዘርፍ አይደለም፣ ኢትዮጵያን ለማዳን ነው። السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي wanaagsan daawadayaal meel kasta dunida nagala socotaan waa habeenimo isniin ah bisha December-na waa 12 sanada 2021 qodobada aad barnaamijkeena ku maqli doontaan waxaa kamid ah kooxda TPLF oo goor dhaweyd saacisay inay dib ula wareegeen magaalada Lalibela. Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed oo dib ugu laabtay furimaha dagaalka. madaxa hay'adda caafimaadka adduunka Tedros Adhanom oo tagay wadanka Imaaraadka Carabta iyo shaki badan oo laga muujiyay. dhanka Soomaaliya wararka imanayaan waxaa kamid ah Ra'iisul Wasaare Roble oo ku gacan sayray mid kamid ah dalabyadii mucaaradka. qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaad barnaamijka ku maqli doontaan saaxiibayaal. soo dhawaada. haddii aan ku hormarno xaaladda dalka Itoobiya iyo dagaalada ka soconaya dalkaasi, goor dhaweyd ay shaacisay kooxda TPLF inay dib u qabsadeen magaalada muhiimka ah ee Lalibela oo horaantii toddobaadkan ay ka saareen ciidamada dawladda dalka Itoobiya iyo kooxaha Axmaarada oo isgarabsanayay. waxaanay kooxda TPLF shaacisay inay galabta dib ula wareegeen magaalada Lalibela. xoogga TPLF ayaa maanta dib u qabsaday magaalada taariikhiga ah ee Lalibela ee ka tirsan gobolka Axmaarada ee dalka Itoobiya. goobjoogayaal ayaa u sheegay wakaaladda Reuters inay wax rasaas ah aanay ka dhicin goobta, balse la arkayay ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanka Axmaarada oo ka baxaya magaalada. dawladda Itoobiya ayaa horey u qabsatay magaalada December 1 sanada 2021, balse kooxda TPLF ayaa shaacisay inay galabta dib ula wareegeen magaaladaasi isla markaana ay iyagu ku sugan yihiin caawa. dawladda ayaan wax war ka soo saarin la wareegista ay shaacisay kooxda TPLF ee magaalada Lalibela, balse wararka ka imanaya magaaladaasi ayaa ah in kooxda TPLF ay gudaha u galeen magaalada Lalibela iyadoo aanay jirin wax war ah oo ka soo baxay dhinaca dawladda. ciidamada dawladda dalka Itoobiya oo bariyahanba olole culus ku waday kooxda TPLF ayay u muuqanaysaa in haatan ay kooxda TPLF soo rogaal celisay haddii ay la wareegaan magaaladaasi muhiimka ah ee Lalibela. dagaalka dalka Itoobiya oo sanado sii qaadanaya ayaa u muuqda mid la isku soo laalaabanaya, isla markaana ay dhinac walba sheeganayo inuu ku soo laabtay meeshiisii hore marka laga joogo maalmo, dhinaca kalena uu isaga baxay. balse waxaa ilaa iyo hadda lagu wareersan yahay dhinacyada ku dagaalamaya dalka Itoobiya oo wax dagaala ku galaynin magaalooyinka, isla markaana isaga baxaya magaalo kasta marka dhinaca kale oo albaabka u soo garaaco. lama oga sababaha ka dambeeya in kooxahan ay isku baneeyaan magaalooyinka, isla markaana koox walbo ay maata ay kooxda kale uga sii baxayso. kooxda TPLF oo baryahanba hanjabaysay isla markaana sheegayay inay sameyn doonaan istiraatiijiyado cusub iyo waliba waxyaabo ay ka bedeli doonaan dagaaladii hore, isla markaana ay rogaal celin xoogan sameyn doonaan, ayay tani u noqonaysaa fariin cusub oo ay u diri karayaan dawladda dalkaasi Itoobiya ee dagaalka kula jirta. balse ciidamada dalka Itoobiya oo baryahanba dadaalo xoogan ku jiray isla markaana horumar kala duwan ka sameynayay goobaha dagaalka oo magaalooyin badan ay dib uga wareegeen ciidamada kooxda TPLF ayaa goor sii horeysay shaaciyay inay la wareegeen wadada u dhaxaysa Maqale iyo waliba magaalada muhiimka ah ee Woldaya, isla markaana ay gudaha u galeen magaalada Woldaya. waxaana la soo sheegay in ciidamada dalka Itoobiya ay haatan u jihaysteen gobolka Tigrayga, balse rogaal celiskan kooxda TPLF ay sheegatay haatan ayaa noqonaya mid walaac cusub ku abuura ciidamada dawladda dalka Itoobiya iyo waliba xukuumadda Abiy Ahmed oo baryahanba isku arkayay inay iyagu guul ku fadhiyaan, isla markaana ay yihiin kuwa ku gacan sareeya dagaalada. kooxda TPLF sheegayay in haatan ay sii dabaysanayso, isla markaana laga saaray goobihii ay kaga sugnaayeen gobolada Canfarta iyo waliba Axmaarada, haatana loogu tagi doono gobolka Tigrayga, isla markaana laga sifayn doono guud ahaanba dalka Itoobiya. dhinaca kale, Ra'iisul Wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed ayaa dib ugu laabtay furinta dagaalka, isagoo la sheegayo in goor hore oo oronimadii saaka uu u duulay gobolka Axmaarada iyo meelaha ay dagaaladu ka socdaan. waxaana warar soo baxaya ay sheegayaan in Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed uu tagay meel aan ka dheerayn magaalada Woldaya iyo meelihii ay dib uga wareegeen ciidamada dawladda Itoobiya kooxda TPLF, isla markaana uu dareemay inay daldaloolo jiraan oo dagaalada dalkaasi ka socda ee kooxda TPLF lagula jiro aanay isagaba ka dambaynin.
haddii uu isagu ka soo baxa furimaha dagaalkana ay imanayso in ay wax iska bedelaan dagaaladii iyo weliba difaacyadii ay kula jireen ciidamada kooxda TPLF-tu ciidamada xukuumadda dalka Itoobiya. Inkastoo ciidamada dalka Itoobiya ay baryahanba sameynayeen horumar kala duwan tan iyo markii uu ka soo baxay jiidda dagaalka Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed ayaa ciidamada dalkaasi Itoobiya ay shaaciyeen inay la wareegeen magaalada Woldaya oo ay gudaha u galeen isla markaana ay la wareegeen wadada u dhaxaysa magaalooyinka Makale iyo Woldaya oo ah wada muhiim ah isla markaana isku xidha magaalooyinka Makale iyo weliba caasimadda dalka Itoobiya Addis Ababa. waana wada muhiim ah isla markaana ciidamada dalka Itoobiya ay ku gaari karayaan magaalada caasimadda u ah Tigrayga ee Makale. Ra'iisul Wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed oo maanta ka duulay magaalada caasimadda ah ee Addis Ababa oo ku sugnaa tan iyo markii uu ka soo laabtay furinta dagaalka isla markaana uu dhowr bari ku sugnaa magaaladaasi oo uu ka qayb galay shirar caalami ah ayaa dib ugu laabtay furimaha dagaalka waxaana uu saaka u duulay magaalada Woldaya meel aan ka dheerayn sida lagu helayo wararka ka imanaya dalka Itoobiya. waxaana la sheegayaa in Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed uu meelahaasi u tagay si ciidamada meelahaasi la wareegay uu dib ugu dhiirigeliyo isla markaana ay shaqadooda hore ugu sii wadaan oo ay u aadaan gobolka Tigrayga isla markaana halkaasi loogu dejiyo khidada cusub oo lagu aadi lahaa gobolka Tigrayga. inkastoo ciidamada TPLF-tu ay meelaha qaar sheeganayaan inay dib u soo laabteen isla markaana ay weerar culus ku soo qaadayaan ciidamada Itoobiya, balse furimaha hadda uu dagaalada ugu baanay ay ka socdaan ee ciidamada dalka Itoobiya ay ka sii siqayaan ayaa ah dhinaca magaalada Makale oo ay ka soo kacitimeen dhinaca magaalooyinka Kombolja iyo Desaya isla markaana ay wadada dheer soo qaadayaan oo ay ku sii socdaan magaalada Makale. balse ciidamada TPLF-ta ayaa u muuqata in dhinacan ay dib uga sii ruqaansanayaan isla markaana ay ku sii socdaan gobolkooda Tigrayga. dhanka kale kulan shaki badan abuuray ayaa ka dhacay wadanka Imaaraadka Carabta kaasi oo halkaasi uu ku gaadhay madaxa hay'adda caafimaadka adduunka Tedros Adhanom oo ah nin u dhashay gobolka Tigrayga isla markaana mucaarad xoogan ku ahaa dowladda dalka Itoobiya. Dr. Tedros oo dhowr jeer mucaaradnimo u muujiyay dowladda dalka Itoobiya ayaa haatan ku sugan dalka Imaaraadka Carabta wuxuuna kulamo la yeelanayaa boqortooyada dalkaasi oo baryahanba la sheegayay inay aad ugu dhoweyd dalka Itoobiya xukuumadda ka dhisan ee Abiy Ahmed isla markaana la shaaciyay inay hub iyo saanad siinaysay dowladda federaalka dalka Itoobiya oo la dagaalamayso kooxda TPLF-ta. inkastoo war ka soo baxay hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO lagu sheegay in madaxa hay'addaasi uu u tagay dalka Imaaraadka Carabta si dowladdaasi looga saaciido isla markaana waxyaabo badan looga soo kordhiyo dhinaca COVID-19-ka ama coronavirus-ka oo dalkaasi khatar ugu jira isla markaana ay diyaaradaha ugu badan ee dunidu halkaasi ay ka kala gooshaan. balse shaki badan ayaa laga muujiyay tagitaanka madaxa hay'adda caafimaadka adduunka ee dalka Imaaraadka Carabta iyadoo ay taagan tahay xiisadda u dhaxaysa dowladda dalka Itoobiya iyo weliba kooxda TPLF-ta oo u xiriir fiican la leeyahay madaxa hay'addaasi oo ka soo jeeda qowmiyadda Tigrayga ay sheegayaan inay u dagaalamayaan kooxdan TPLF-ta ee haatan dagaalka adag kula jirta dowladda dalka Itoobiya. haatan aan eegno wararka ka imanaya dhinaca Soomaaliya ayaa sheegaya in Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble uu ku gacan sayray dalab mucaaradka uga yimid isla markaana ahaa in doorashada dalka ka socota oo ay shaki badan ka muujiyeen mucaaradku la hakiyo oo la isugu yimaado shirar halkaasina lagaga wada xaajoodo doorashada boobka lagu wado ay sheegeen mucaaradku. balse Ra'iisul Wasaare Roble ayaa la sheegay inuu gaashaanka u daruuray dalabka mucaaradka uuna sheegay in doorashada dalku ay sii soconayso isla markaana aanay jirin wax hakada oo ku iman karaya doorashada, balse wixii caqabada iyo weliba cabashooyin ah ee la qabo loo soo gudbin karayo xafiiskiisa isla markaana uu wax ka qabanayo. akhyaarta sharafta leh wada nagala socoto intaas waxaan kusoo koobaynaa guud ahaanba wararkii naga soo gaadhayay dunida intaan ku kulmayna warkan warka xiga waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.